Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Muuqaalkeena waxaan ku baran doonaa shuruudaha uu Google AdSense kaa doonayo uu ka doonayo website-kaaga inay lahaadaan ama inaad soo buuxiso si website-kaaga lagugu aqbalo. Waxaa jira shuruudo uu Google ku leeyahay oo loo baahan yahay in website-kaaga uu yeesho ama laga helo marka aad Google AdSense dalbato. Markaasi muuqaalkan waxaan ku baran doonaa sida la iskaga saxo dhammaan waxyaalaha ama shuruudaha uu kaa doonayo Google AdSense weliba si yaro easy ah. Marka ugu horreyn haddaynu ku bilowno, number 1 wuxuu kaa doonayaa privacy and policy. Number 1 wuxuu kaa doonayaa inaad leedahay privacy and policy. Privacy and policy-na waa page ka mid ah page-ka uu doonayo Google AdSense si uu website-kaaga u aqbalo. Wuxuu noqon doonaa page ka mid ah website-kaaga oo aad u samayn doonto oo xagga hoose ayaa inta badan laga soo muujiyaa. Haddaynu eegno waynu nimaadno qodobka koobaad isla eegno privacy and policy. Privacy and policy si aad ugu soo darsato waxaan imananaa marka horeysa website-keena hoygacrypto.com baan imananaa. Haddii aan hoyga crypto nimaadno haddaan hoyga crypto nimaadno oo sidan u soo baxaya privacy and policy-gu waxa uu inta ugu badan ku jira xagga ugu hooseysa waa kana privacy and policy wakaasa privacy and policy page markaasi oo Google kaa doonayo inaad lahaato privacy and policy wax la yiraahdo oo macnaha ka turjuman website-kaagu inuu yeesho shuruudo iyo nidaamyo u yaala oo lagu soo geli karo oo noqon wax iska malayaaniya. Markaasi privacy and policy page wakaasa sa loogu soo darsado hore ayaynu soo sheegnay. Privacy and policy-gu waa page-kani waa kan privacy and policy for hoyga crypto wakaasa waxyaalahaas ayaa lagaga baahan yahay markaasi. Marka page-kaasi waa easy si yaro fudud ayaa loo sameeyaa. Muuqaalo hore ayaan ka sameeyay sida loo sameeyo page-ka uu kaa doonayo Google-ku. Marka number 1 ku kaa doonaya waa privacy and policy. Haddaan eegno number 2-ga waxa weeye terms and conditions. Terms and conditions sidoo kale isna haddaan website-keena ku soo noqono waa page-ka noocan oo kala ah isna xagga hoose ayuu ka soo muuqan doonaa. Inta ugu badan xagga hoose ayaa laga dhigtaa waa kana page-ku meeshaan ku qoray terms-ka kaliya ta weeye. Page-aan terms waad ku qori kartaa, terms and conditions waad ku qori kartaa. Marka terms-ka aan ku qoray weeyaan haddaan isagana isla yar tijaabino oo eegno wuxuu yahay iyo wuxuu ka hadlayo wakaasa terms and conditions for hoyga crypto. Introduction-kiisa wakaasa website-kaaga la sharaxaya wuxuu qabto iyo wuxuu ka sheekaynayo iyo rights-ka uu leeyahay ama xuquuqihiisa si qofka soo gala uu soo anshax leh uu ilaaliyo waxa ku jira gudaha webkaaga. Page-ka terms and conditions waa page-ka labaad ee looga baahan yahay. Page-ka saddexaad ee laga baahan yahay waa contact us page. Isna soo on haddii aan nimaadno website-keena inta ugu badan page-ka xagga hoose ayaa lagu guraa oo Google ku kaa doonayo waa kana contact us page isna waa la sameeyaa. Sida loo sameeyo dhammaantood muuqaalo ayaan kaga hadlay. Waa meel lagala soo xiriiri karo oo halka qofka magaciisa ayuu soo gelin doonaa email-kiisa kadibna message ayuu ku soo diri doonaa haddii wax ka rabo. Waa muhiim oo page-ka ugu muhiimsan ee Google ka dhow ka eegayo in website-kaagu uu leeyahay. Number 4 about barahda ama about us ayuu kaa doonaya oo wixii website-kaagu ku saabsanaa ka sheekaynaya. Marka haddaan website-keena xaggiisa hoose aan nimaadno isna waa ka salkan ku jira about waa xaggan ku jira isaguna about page. Haddii aan ku dul dhufano about-ka wuxuu ka hadlayaa yar eegno waxa ku qoran haddana waxa igu qoran waxa website-kaygu uu ka sheekaynayo ama waxa uu ku saabsan yahay. Waa page laga doonayo isagana ay waajib tahay inaad samaysataa. Number 5 waxa laga doonayaa page la yiraahdo disclaimer page la yiraahdo ayaa isagana laga doonayaa. Disclaimer page-ka lagu sheegay isna haddaan website-keena ku soo laabano waxaan xaggiisa hoose aan aadna sidii markii hore waa kana disclaimer page-na waa kaasa isna waa waajib inuu kugu jiro website-kaaga oo aad leedahay disclaimer wax la yiraahdo. Waa kana isna waa inuu sidoo kale uu kugu samaysan yahay oo uu kugu diyaarsan yahay disclaimer page-kaagu.
shantaasi page ayaa ugu muhiimsan inta uu kaa doonayo Google-ku ama Google AdSense-gu shirkaddan la yiraahdo ay kaa doonayso si aad ay kugu furto AdSense ama ay kugu furto xayeysiinta. Shantaasi page waa muhiim oo waa inaa xagga hoose ee website-kaaga ama xagga sare ee website-kaaga ay ku jiraan page-kaasi. Waa number 1 waa shardiga koowaad oo uu kaa doonayo page-kaasi. Haddii aan website-keena kusoo laabano page-ka waad kasoo muujin kartaa dhinaca sare iyo dhinaca hooseba, laakiin mostly waxay ku fiican yihiin dhinaca hoose ayay ku fiican yihiin. Haddaan hadda eegno website-keena waxaan aragnaa in halkan noogu jirto contact us waa same kii hoose ee kii kale. Inta badan contact us ay xagga sare soo marsadaa, about-na waa aad soo marsan karaysaa. Kaas waa qodobka koowaad. Qodobka labaad uu kaa doonayo ayaa waxay yihiin inaad soo geliso postiyo aanan lahayn wax copyright ah. Posti haddaad maqashid waa kuwanaa, waa kuwa postiyadu waa waxa la soo gelinayo. Waa kan waa maxay blogger iyo isagoo English website blogging ah iyo kan aan ka hadlayay. Waxaas oo dhan ayaa la doonayaa iyaga iyo sawiradooda inay free yihiin, micnaha inaad adiga iska leedahay. Waxaa jirta nidaam loo sameeyo postiyada oo postiyo free loo helo ama la helo sawirro free ama articles oo qoraalada ah micnaha oo free la helo oo meelo laga helayo website-yo laga soo diyaariyo ayaa jirta oo san kuugu qoraya oo san kuugu diyaarinaya postigii si free ah weliba oo aan wax copyright lahayn. Google-ku waa shardiga labaad ee uu kaa doonayo in postiyadaadu ama contents-kaagu ay yihiin kuwa adigu aad leedahay oo sidoo kale ah clear ama professional ah oo si fiican oo qurux badan u dhisan. Waxaa wanaagsan inuu 400 ilaa 300 wixii ka sarreeya oo ay kugu jiraan oo weedhood macnaha 400 oo weedhood iyo wixii ka badan waa okay, waa kuwa aqbalaya. Haddaan intaa kaga soo gudubno shardiga labaad ee ah in posti aad adigu leedahay ama article aad adigu leedahay ama aan wax copyright lahayn oo clear ah inaad soo geliso uu kaa doonayo. Shardiga saddexaad haddaan eegno, shardiga saddexaad waxa weeyaan pageska ama waxa la yiraahdo pageska xagga sare ee menu pageska oo kuwan dhammaantood waa in mid walba markii lagu soo dhufto ugu yaraan ay ku jiraan 4 posti. Mid walba ugu yaraan waa inay ku jiraan 4 posti. Kan haddaan ku dhufto hadda u sarreeyaan tijaabino aniga page-kan sii hoos geliyay. Haddii page asan u sii hoos geliso waan halkii page ugu yaraan ay ku jiraan 4 posti ayaa ugu wanaagsan ay ku jiraan ama 4 posti inaad hoos geliso. Tusaale kan hadda haddaan ku dhufto lessons-ka waxa ku jira casharradii blogger-ka ku saabsanaa oo dhammaystiran baa ku jira oo weliba aan hadda ku sii wado kuwa kale oo ku kordhinayo. Laakiin casharradii blogger-ka ayaa halkan ku jira dhammaantood oo aan kanaalkeena YouTube-ka ka soo qaaday. 12 cashar ayaa ku jira hadda. Waa inuu postigu ugu yaraan waxaan u jeedaa page-ku waa inuu leeyahay ugu yaraan 4 posti oo nadiif ah waa inay ku jiraan oo qurux badani. Okay, ka u sarreeya haddaan ku dhufto what is blogger haddaan ku dhufto waxa ku jira hadda 2 posti. Kolkaa waa khasab in 2 posti wax ka badan aan soo geliya si aan adreska u dalbado markaasi haddaan rabo website-kan adres u dalbo. Markaasi postiyada saan u soo geliyo kale soo gelinaysaa. Postigu saan ku sheegay waa inuu ahaada mid si qurux badan u dhisan oo aad u qaabaysan ama nashqadaysan oo aad u qurux badan. Hadda sida kan oo kale aan u diyaariyay. Waa inaad u diyaarsataa oo uu leeyahay heading qurux badan iyo subheading iyo maxaa ku dhaca sawirro qurux badan. Okay, kaasi waa shardiga saddexaad ee uu kaa doonayo Google AdSense-gu uu kaa doonayo. Shardiga afraad waxa weeye shardiga afraad ee uu kaa doonayo Google-ku ama Google Ads-ku ay kaa doonayaan waxa weeye in website-kaagu ugu yaraan uu jiro 2 bilood. Ugu yaraan website-kaagu waa inuu jiro 2 bilood ama waa inuu 2 bilood dhisan yahay website-kaagaasi. Shardiga shanaad ee uu kaa doonayo waxa weeye in aad leedahay waxa la yiraahdo domain ama waa inaad qaybta website-kaaga ee xagga sare marka la soo booqdo una blogspot ahayn micnaha hadda sida website-keenan oo kale hoygacrypto.com waa ina .com uu leeyahay oo una lahayn wixii blogspot-kii marka ugu horeysa lagugu furo. Waa lagu aqbali karaa blogspot dad loogu soo aqbalay ayaa jira oo kumanaana laakiin mostly laguma soo aqbalo ama way kugu celcelinayaan halkaasi. Taasi aad ay muhiim ugu tahay Google-ka
sidii dee waxaad u dhaqmaysaa markaasi ruux live ah ama target leh oo wixii dakhli geliyey. Shuruudahaas ayaa ugu muhiimsan Google markaasi inaad website-kaaga u yeesho. Shantaa qodob haddaad iska saxdo, mid walba gaarkiisa aad u saxdo, runtii waa lagu soo aqbali doonaa website-kaaga. Xayeysiiskana waa lagu furi doonaa. Insha Allah lacagna waad ka samayn doontaa. Muuqaalkan waxaan ugu talagalay isagana inaan ku sharxo waxyaalaha uu kaaga baahan yahay Google AdSense-igu si uu kuu soo aqbalo. Aad baad mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.